أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah ee ku jirta baraha bulshada, barta social media. waa MMS, waa MMS. so kanaxow nafta waa baan ku iri soo bata. anaa runta idiin sheegaya, beenta aad habeen iyo maalin ku dhaqmaysaan anaa runta idiin sheegayee. xalay baan soo qoray, xalay dinos baa lifeka ku jira. ina rabti kuma sameeyeen, laakiin qoraal baana u qoray. I hope inuu ifahmo. xalay baan waxaan sheegay 10 o'clock Arizona time ayaan soo gelayaa life. 10 o'clock waa 10:08 hadda. waan sheegay inaan anigoo qaba kastuumo iyo rajabeeto inaan soo galayo. soomaaliyay waxbaan idiin sheegayaa. ma idinkaa social media iiga xiri kara? MMS way qaawan tahay. miyaa social media iiga xiri kartaan? waa su-aal. ma adinkaa social media iiga xiri kara calaashaan maryahan aan qabo baad idinku social media iiga xiri kartaan? waa no. taas haddaad samaysaan sharciga dalka baad jabinaysiin, mana samayn kartaan. laakiin waxaan idiin sheegayaa, been baa barateen, runtaan idin barayaa. maxaa idiin sheegay? qofka bini aadanka ah adduunka wuxuu ugu jecel yahay naftiisa, ilmihiisa, waaridkiisa. naftaydii damage baa kasoo dhigteen. damage baa isoo gaaray. ma mentally baan ahay? no, I'm not a mental. ma ihi qof waalan, ma ihi. qofku wuxuusan ahayna kuma talo kartid. qabiil haddaad caayaysid, I don't care, that's your talent. laakiin waxaan kuu sheegayaa, qof kasta oo adduunkan jooga hameenku hooyadiis candhadeedii kasoo baxay, soo marjeedeen? candhaday kala qaaday idinku hayee. waxaa idiin sheegayaa, hameenku hooyadiis caloosheeda kasoo baxay inuu dhalanayo asagu isma ogeyn, laakiin wuu dhashay. haddana ilaahay baa adduunkan keenay. adduunkan cimrigan maanta aan joogo baan waxaan kusoo gaaray ciil iyo caro. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. soomaalidu waxay tiraahdaa talaadaan la roogin waa lagu rafaadaa. intaan kuu soo fariistay aniga oo victim ah, intaan kuu soo fariistay aniga oo victim. maanta waa maalinta womanka, laakiin womankee soo qabanaya? wax woman oo aan soo qabanaya malahan. I'm the one is the woman ee victim ayadoo ah social media soo gashay ee ku dhagaysiinaysa waxa aan ahay. this is anaa iskale. it's your or it's me? it's me. anaa iskale. Somali people been ha isu sheeginina. hooyaan la daawanin, ooyaan la kanaysanin. aniga I don't care haddaa i daawatid, I don't care haddaadan i daawanin, I don't care haddaan nin tahay. so haddaad anoo qaawan aad igaba xishoon kartid, waxaad iga xishoon lahayd anigoo 6 years old jiraad iga xishoon lahayd. anigoo 6 sano jira baad iga xishoon weyday. anigoo 60 jir ah, you think so inaa iga xishoonaysid inaa i daawatid anigoo qaawan? marka caqligaagaa wuxuu ku siiyey inaad tiraahdid oo habartii reer hebel oo isqaawisay, oo habartii mataqaanaayeeto ee saan ahaydo, oo allaha ku caafiyo, oo hadallada khiyaaliga ah inaad ku hadashaan. maxaa keenay? maxaa i qaawiyey?
maana isqaawiyey anigoo asturan oo weliba codkaygu daciif yahay ma kuu soo galay yes or no anigoo kule victim baan ahay ma kuu soo galay yes or no anigoo xiiran oo xiirnaantayda kaa qarinaya ma kuu soo galay yes or no jalbaab intaan kuu soo xirtay ma kuu soo galay yes or no still anoo ka sheekaynayo ma kuu soo galay anigoo indhuhu ii xiran yihiin yes or no ma kuu soo galay anigoo product xayeysiinayo oo aan rabo inaan wax soo saar sameeyo oo aan ku iloobo lifekayga inaan wax ku mashquulo ma kuu soo gala ma kuu soo galay anigoo wax complain garaynayo ilmahaygaba allaha ka dhigay ma kuu soo galay anigoo kule intaana dhiman waa dhargaya taariikhdaada dib ugu noqo ka taariikhdiina dib ugu noqotaan 2 years waxaan kugu akhriyayay markaad dib ugu noqotaan markaasaad aniga waxaan sheegayay fahmi kartaan laakiin shalay wixii aad aragtay inaad ilowdid oo aad maanta wax cusub inaad aragtid aad raadisid I don't care Soomaaliya ama Afrika ninka ugu qudbada dheeraa Maxamed Siyaad Barro ahaa intaasoo saacadood buu wuxuu qudbayn jiray janno iyo raxmo Allah siiyay asagoo warqad saa u fiirinin jaamacadda buu ka soo baxa jaamacadda talentigu ka soo baxa waxaan idin sheegayaa marka Barack Obama buu ahaa madaxweynihii Ameerika ahaa speechkiisa marka la arkay baa iskuulada Ameerika lagu daray speechka why because waxbuu keenay fiican Maxamed Siyaad Barre speechkiisi haduuna Soomaali ka dhalan lahaa adduunka oo dhan baa ku dhaqmi lahaa waa hore wax barashada lagu dari lahaa laakiin yu ka dhashay Soomaali buu ka dhashay that's why baa speechkiisi Maxamed Siyaad Barre aan taariikhda loogu qorinin speechka Obama taariikhda loogu qoro Maxamed Siyaad Barre wuu ka speech dheeraa Obama laakiin Obama waa ilaahay muxuu siiyay wadan xor keen wadan xor ku dhashay original South Africa ka soo jeeday taariikhda aan ku sheegayo qof waalan ma ku hadlaa wax aan ku akhriyayo yes or no Somali people waxa rabtaan qof idinka aqli badan oo idinka talent badan oo idinku damage gareyseen in aad tiraahdaan oh way waalan tahay no I'm not a crazy I'm not a mental I'm not but I am victim maalintan ku soo galay social media baan ahaa todayna I am survivor nan adiga inaan ku joojinayo marka anoo survivor nan adiga inaan ku joojinayo nan inaan adiga aqligaaga anigu aan samaynayo nan anigu waxaad jeceshahay inaan yeelayo nan adigu inaad qabriga ila galaysid nan adigu inaad xisaabinaysid nan inaad adigu ilaahay abuurtay adigu aad tahay nan adigu inaad malaa'igta garbahayga saaran nan wax badan baa ka khaldan but gurigaagay ka shidantaan ku iri am I right gurigaagay ka shidantaan ku iri way aniga baadhigayga ugu mashquulay ma gurigaaga ku noqotay way aniga baadhigayga ugu mashquulay ma fiirisid waxaan ku ilmahayga waa la damage gareeyay ilmahaygu waa damage Soomaali baa damage gareysay hooyadiina waalan hooyadiina kan abahooda ka tagay aniga kaligay korsaday intaasaan la rafaadayay anigoo nin inta Afrika ka keenay aan ooyay arki jireen anigoo walaalka ay xumeynayay arki jireen anigoo gabadhaydi mid taqaanay tuxshe aniga wax walba ilmahaygu soo arkeen ilmahaygu waa damage gabadhayda 30 something years jirta aabaheed waligeed ma arag ayadoo Sacuudi Carabiya waa aan la tagay ayadoo sanad iyo xoogaa jirta baa Sacuudiga la tagay waligeed waagaasay aabaheed indha saartay mana garan karto sanad iyo xoogaa muxuu garan karaa sanad iyo 5 months I don't know meelahaas iyo sanad iyo I don't know anyway iyo sanad ma qabo anyway waxay doontaba ha ahaatee ilma damage ah oo hooyo single mother korsatay anigu damage baan ahaa hooyo single mother ay korsatay aabahay wuxuu ahaa ninka magaalada Galaadi nimanka ugu lacagta badan buu ku jiray believe or not xamara ku dhashay ilkaan ku dhashay baa tirahdaan aabahay xoolihii uu ku lahaa Galaadi muxuu naga soo siiyay ma nagu dhaqaaleeyay muxuu noo dhalay hadduu san dhaqaaleynaynin waa su'aal yaa korsaday hooyaday baa shaah ii karin jirtay shaah intay kariso yaa koobay macalabeen intay Galaadi ku tiraahdo
يا بوسن آبهاي أقوري جرنين لا والله الله جنة يرحم الله جي بوسن أقوري جرنين وانجي سكر أسقى ككينا درب تقنا يتقلبيت ككينا وانجي سكر نمكن الأورنج ريبو آبهاي أها وقلبيت ككينا جري راشينك يا وانجي سكر آبهاي أسقى كينا وكنتالذي ووينا يا كنتالذي ووينا أو سكرت أها كينا أو بريسكي كينا أو بحاليا باستدي كينا أو وحول بو إثيوبيا لقى كينا آبهاي وإلسي أولها وقت قاس إلسي بقولها إنه أنت كسوق هذا قفل بس كمسوق هذا كريم بو آبهاي حق ويقولها أنشري أنت قلنا كينا بوسن أقورتين هو يضي إنه سيا كنتال سكر أو أي شهر إنه كريسو أي ما رت المهيس أي كوبيشو believe or not let me tell you something Somali people damage baa wuxuu nagu soo gaaray hooyada iyo hoosteeda annagoo taagan oo ilmo yar yar ah baa hooyada iyo family-geedii yaa hoosteeda nagala baxay ta'ayeeday baa deel la igu geeyay baa abtiga isoo farxumeeyaan ku yiri protect been bay sheegaysaa saanay sheegaysaa soo guryihiinay ka wada shidan tahay soo waxbaa qarinaysiin soo waxa ka baqaysaan daadka ordaya inuu ku soo galo ko daadka ordaya inuu ku soo galo baa diidaysa laakiin no matter what wuu soo gali hadaa fal samaysay wuu ku imaan waqti kastaba ha gaarto it is not may qaawanaantayda laakiin waxaad fiirisaa waxa aan ka hadlayo ma logic baa ma qof waalan baa waxaas dhaha ma qof miir qabaa dhaha maxaa iga keenay maxaa i qaawiyay shalay markaan soo fariistay ee aan qaawanayn maxaa ii qabatay maxaa been isugu sheegaysaa shalay way caayaysay maanta qaawanayna way caayaysaa simple marka do I care caydaada ilmahayga waa damage waa idin sheega maxaa u qabateen ilmahayga nothing ko gabadhayda ugu weyn ilmaha waa damage waa la damage gareeyay soo maxay igula soo kortay anigoo damage aan soo koriyay anigoo oynayaan canjeelada aan dubo oo oohinta ku daadataan soo siiyey aabba may arkin weligeed yaa laheed abti u naxa may arkinin reerka iyagaa soo kaxeeyay waa iga soo horreysay sandiyaaga markay timid gabadhaydoo sanka iyo afkaba sanka dhiigka habeenkii kasta kasii daysa baan Afrika oga imid oo wiilasha intaad aragtay leeg ay garaacaan so damage-ka dadka inta loo geysto haddana la oranayo saanaa tahay hebla waa waalan tahay soo ma fahminin gabadhayda iyo wiilashayda intaba waxaa damage gareeyay kow ninkii isoo farxumeeyay labo oo abtigay ahaa labo macallinkii dugsiga saddex macallinkii kaloo dugsiga afar ninkii i yiri ilmaan ka dhalay asagoon ilmo iga dhalinin shan ma wadaa ilmahaygu waa damage maxaa u qabateen aniga ms waxa loo qabto harta waa adiga ku haye haddaa shiikhow sheekh tahay oo masaajidka shiikhow ku jirtid oo diintii islaamka oo qaaliga ahayd aad qaadatay oo aad leedahay masaajid baan ku jira ma kuugu imid masaajidka yeesano maalintaan soo galay makaa ka sheekay maxaa ii qabata walaalkayga maanta ay ka xun qaawanaantayda oo yaa embarrassing-ka ah inuu maanta makhaayadihiisa xiro ay taagan tahay ee ay ka shidan tahay yaa maalintaan kuugu imid degdeg ee aan kugu iri walaalle waxaas iyo waxaas baan rabaa oo wiilka shaqaalahaaga aan ku soo wacay oo ma baahni ma ku tiriyeesano teleefonkaaga intaan weydiistay lambar beena ma isiiyo yeesano walaalle magaaja ay haysay waxaan ku lahaa kasadhiye isi no ma kasadhiye isi baan kugu lahaa no kow rajabeetooyin ma haystee kow jabeetooyinka igu yaro ma haysta rajabeetooyin marka igu balaqaba laakiin macna male waa gaari doonaa kan lacag yeesho maaragta sida gabdhaha horumaray oo kale markaan gaaro markaasaan gadan doonaa iyagoo bokasiya laakiin this today atayadii hore waa balaq mar horaan kasoo gatay Minnesota marka walaalkay maalintaasaan qabasho lahaa age hadday noqoto waa ka weynaa
walaalkay buu ahaa waa iga yaraa muslim buu yahay diin buu haystay so sheekha walaalkay uu yahay oo ii sheegayo nimanka soo walaalaha waa wadaada ay leeyihiin wadkaana wadaad ah wiil yaroo brown wash inta ku dhigay niman shabaab ku dhigeen oo gumsaajidada idinku jira ya ay asagoo wadankan baby oo la keenay ay maskaxdiisiba meel kale u wareejiyeen ay dambi galiyeen ay victim ka dhigeen walaalkay asagaa victim ah wixii victimka ka dhigayna wuu yaqaanaa wuu qarinayaa laakiin markaasoo asagu jeel u galay kuwa kalena jeelal ugu jiraan ko marka you think so qof victim anigu inuu wax ii qaban karo anigu qof survivor ah wax ii qaban kara aniguna survivor baan ahayo waxbaan kuu qaban karaa believe or not fahanteen believe or not been ma idiin sheega hilibka markuu kaabato lagu ku xanuunayo cimriga waxaan joogaa lagu dadka xanuuni jireen laakiin waa yeel yaa qaawiya Soomaaliba waa yeel qaawisa so haddii waa yeelka warkiisa la diido de waa yeelku wuxuu doonu sameynaya because am har ha maxaa daawanaysaan oo ma ka tagtaan so haddaa ii qabtaan inaan waalnahay oo waalna ii daawanaysaan been ma idiin sheegayo am not mental laakiin waa ku talagala xalay baan soo qoray xalay fiidkii aan soo qora inaan biri 10 o'clock Arizona time inaan soo geli doono anigoo saana waa idiin sheego xalay waxaan seexday I don't know 3 something life-ka waxaan ku jiray dinos aan ka hadlayay why because waan karkarayaa so dhari baan ahay dab bay saaran gurigaygay ka shidan tahay oo kaagay ka shidan tahay oo kiinay ka shidan tahay oo kuwooday ka shidan tahay guri walba Soomaaliyeed bay ka shidan tahay markaas MMS baa dharkii iska dhigtay iyo MMS baa isqaawisay iyo MMS baa saan yeeshay iyo MMS baa reer hebel iyo habartii reer hebel iyo wax aan meel gaarin baad ku wareegaysaa MMS first of all waa Soomaaliyeed first of all MMS waa Soomaaliyeed wixii kale ka soo dheeraada adigu qayb neefku waa neef marka la qalo waa neef marka la qalo xubnihiisa saa doontid u kala qaado laakiin markii hore muxuu ahaa neef xiran oo nool midi baad marisay waad qashay galkii baad ka qaaday harag buu noqday xagga calooshii baad jeexday mindhicirkii iyo taqaanay bahalkii iyo calooleydii iyo wixii iyo uuskii waxaad ka daadisay okay waad waday waad googoysay muxuu noqday xubin buu noqday so marka hore muxuu ahaa neef buu ahaa ama geel ha ahaado ama lo ha ahaado ama ari ha ahaado aqligaas yaa ku bari kara MMS baa ku bari karta because haddeer 6 saac aqligaagu soo dagaa 6 saacna wali ma aanan gaarin kuwa ilmahayga saacadan ayagoo damage ka sii dhigaya oo warka ku akhriyayo idinkay idinka shidan tahay waa family-gayga dhageyst message baa idin dhageysinaya ilmahaygu waa damage dadka soo dhigaya ii soo diraya ya halkan waxaa ku duuban gabadhayda codkeedii baa ku duuban aan ka naxamalay MMS baa leedahay gabadhayda codkeedan waxaan idin dhageysiinayaa gabadhaydu ima caayayso waxba ima oranayso this moment laakiin pressure baa saaran so pressure-kaad aniga isaarteen ya baa ayadana la saaraya but it's not her fault it is mine baadigan ana iskale السلام عليكم معن مالك كساك سوا عطرافك أنا وحي إذا بلا كريسة إذا حرتي أنا أنت ما قام حقه وحي لا كيسة هاي هذا ماشي مريض ومن لقنا حياة وإنت السوق كتير أدوب تعاون social media معقول ما هو معن this is the bottom هو وحكى لسان كتر أو حين كتير مشرو أيها تاي واردة تاي هوية تاي حبرير تاي انت نهاري وحاسو دقايا social media وحكا سوى حي before روي this is the lowest of the low هوي معان رقبع للشيء برير باك دلتي وحكا سوى حي لكيسة انت ايسو قاويسي او الدنيا ايسو ديكتيد او ايسو بالبروي باركي دونتا او سان قلنا اركي دونا وخلد هوي ويسو بوادمتي Anyways, I'm planning on Intaimalo. Inshallah, weekend ka Intaimalo because I can't watch this anymore. Man,
aniga laftiga xanuun igu dhacay because waa wax laga naxo bilaadan nool waxa inta arko waa khalad way macaan ayaa tahay oo waarid baa tahay oo ilaahay adoonkiisa tahay waxa ku dhaqmaysa hadda meesha maraysid ama waa waasha dheh ama waxa la maryaha nii dhigtay caawisa rabaa because inta hooyo andaa soo dhigta social media that's unacceptable hooyo I don't care waxa dhahdi I don't care da ila dagaashi kulli waa imaan doonaa saana inta laga roonaado because hooyo diin ahaan saan ma ku jiri karno bilaadahaan saan ma ku jiri karno Soomaali baa u dagaalaya Soomaali baa u doodaya Soomaaliya kala waxaanaya I don't give a fuck about Somali because Somali meesha waxa ku kaasi daraysa waa Somali they don't care show ba u noqoto entertainment ma u noqoto anaka family-gaaga anaka turkaada ani suban we're gonna stand by you no matter what but hooyo saan inta waxaysid adoo ayeeye adoo waarid oo gabar dhalay ayna gabar u inta andaa soo dhaqo social media waa khalad it's not right I don't care what you say ama waa waasha dheh ama waxa dhahdaa hooyo caawisa normal ma aha inta andaa soo dhaqo social media adoo ayeeye waa xaraam waana khalad anyways we can come by Montana I cannot deal with this anymore ama waa isoo raacaysa ama waxbaa talin doona because this is waxa normal ma aha anyways it's so I'm a 24/7 telefonka xiro for no apparent reason waarid baa tahay dumar baa u dagaaltamaya 24/7 ba anakii baana dulminaysa macquul maaha anaka wax sax ku sheegayna telefonka naga xiranaysa for okay so martan ilmaaygi ma dhageysateen saakay soo duubtaa maleynaya think what time ay soo duubtay 7:16 a.m. anyway do I care you she's my blood she's my daughter waa gabadhaydii you know maxay aragtaa maxay ii qaban kartaa haddii hadda ii timaado maxay ii qaban kartaa hooy ha soo khasaarin haddaad timaad tiraado waa soo baxaya ana waa tigaya meel kale aadaya because I'm driving because aniga intaa igu mashquulaysiin oo aad isleedihiin maama milyuun waasaan maama milyuun I don't care bay tiri gabadhaydu Somali people I don't care but I care Somali because I am victim baan ahaa waxaan soo arkay victimnimaan soo arkay but waxaan rabaa kuwa victimka oo aan codka lahayn ee aan waxba dhihi karinin ee haddii sida anigu u hadlay oo kale u hadlay dhimanayo ciil la dhimanayo inaan caawiyo so ma gabadhayda maskaxdeedu misku hal baan nahay no gabadhaydu ma gabar xun baa no gabadhaydu wadanka iyadoo baby ay timid haddana waad u jeedaan luqadeedu siday nadiif u tahay I am the good mother baan ahaa anigoo victim baan waxaan ahaa very good mother baan ahaa so naaga ila mid baa waxay barteen markay victimka noqdeen inay cabaan inay suuqa galaan inay dadka toogsadaan inayna shaqaysan marka anigoo victim baan caruurtayda wati oo ilmahayga u shaqaysanayay oo dadka magaalada ugu qurux badan oo dadka la tartama ama lagu daydo baan ahaa role model baan ahaa maantana maxaan ku hay mataqaanaa I'm still role modelkaagi baan ahaa so inna camalu binniya baa la yiri inna camalu binniya maxaa ka horeeyay jaranjarada midda ugu hooseysa laga soo bilaabaa dhan ilaa takoro lagu tago marka hoos loo deganayana tankoraa laga soo bilaabaa din ilaa hoos lagu yimaado markaan runta kuu sheegayay marka aan wax kaaga hadlayay marka aan taqaanayto waay baad ii lisin garayn weyda maanta maxaa ooyay markaan qaawanahay ma adigaa qabriga la gelinaya adiga lagu gelinaya gabadhaydaan la gelinayn wiilkaygaan la gelinayn caruurtaas yaryarka ee qurbaha ku kortay ee muslimka ee MMS dhashay ee damage-ka aad gaarsiiseen baa waxay idinka baahan yihiin help kuwaasaa caawin idinka baahan kuwaasi idinkama baahana boysinka aad la wareegaysaan iyo negativeka familygayga ilma Cabdilla Califeer Laylaha ugu horeyso
gabadheedu ha ku xigeen kuwaan ilmo ku banaasa dheer ha ku xigeen qashinka magaalada jooga reerka ay ka dhalatay aabaheeda ay la xiriirto kuwa adeerkeed dhalay reer xaashi ay yuusuf been ma idin sheegaye gabadha yarta ah ee baybiga yarka haysata ee reerkay ilmaha u dhashay ayadaba ay damage gareeyeen ka daaya viruska iyo qurunka aad kula agwareegaysaan leave it alone gabadhayda yarta ii daaya gabadhayda ii daaya aad warka kusoo quraysaan teleefonkeeda waa iska balowgareeyay so ma rabo inaan gabadhayda oo ooyeysa aan dhagaysto maalin walba I don't want it ayadaan protect garaynayay social media gabadhaydu ma soo gasho ayadoon soo gelin baad ku caayayseen ood ka qaban weydeen kuwa caayayay ko madaxii calool kula lagu kala furan teleefonkeedana waa kaasa ha lagu yaaco baad wax ka qaban lahaydeen maantana waa tana ilmahayga idinka damage gareeyay anigana idinka ay damage gareeyay soo ma adan fahminin laakiin anigu ku joojin maayo waxaana kuugu joojinaynin yaa wa kuwaasaa ilmahaygi waa damage laakiin maxay ogaan doontaa gabadhaydu markay muddo joogtay ogaanaysaa waxaan ka hadlayo aniga damage baa igaaray damageka igaaray wuxuu ahaa inta la ikufsaday inta dhibaato la igu sameeyey inta wax la igu waxeeyey baa waxaa la yidhi waa beenteed are you sure inaan been sheegayo maxaa ku believe karaysa inaan been sheegayo maxaa ii rumayn weyde ma waan ilaahay rasuulku oranin ma waan ilaahay oranin rasuulku wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinku yidhi buu yidhi ummadayday run sheeg ummadayda oga qaado waxaan waligay qalbigaya ka baxaynin abtigay xuseen jibriil muuse cali yare oo maxamed jibriil la dhashay baa wuxuu dhalay wiilal badan iyo caruur badan dumaro badan buu guursaday oo qaar hooyooyinkood u furay oo qaar hooyooyinkood u qabayo ilmihiisi wiil ka mida oo camburo la dhaho oo hadeer awoowo ma ahane abkow ah noqday maybe ilmihiisa ilma sii dhalay kollo camburo kuwuu sii dhaleen baa laga yaaba inay caruur dhaleen camburo xuseen jibriil baa waxay tiri faaduma baarcad islaan la dhaho oo maxamed xuseen jibriil uu qabay baa waxay tiri camburo hooyadiis waa horaa la furo gabadha marka hooyadeed la furo iyo wiilka marka hooyadii la furaba konton magac buu leeyahay 100 magac baa loo yeelaa waa wax alaala wixii dhacay waxa weeyaan wixii xunba xawaala saa u tirahdaan bad ilmahiina guryihiina jooga baad waxaad ka dhigtaan victim baad ka dhigtaan so maxaa rabaa inaan idin sheego xuseen jibriil islaantiisi Allah u naxariisto xuseen jibriil wuu dhintay nin lacag leh buu ahaa nimankii galaadi ugu lacagta badnaa waa sida aabaha iyo kale ko bay intay wuxuu yiri baarcad baa inta u tagtay waxay ku tiri wiilkaaga camburo baa wax iga xaday dukaanku wax ka xaday buu yiri bay tiri hooyo aan ku dhalinin inay in ku yeeshay jeceshahay waligeed Allahumma najayna kuwi ay koriso ilaahay idin gargaar markaasay wuxuu ku yiri adaga u yeeray salaad aabe waxaas ma qaadata mana u qaadanin so baa laga yaabaa so waa la nabaaya hadduu doono u qaatayna muxuu u qaatay waa xoolihii aabihiis haddii uu qaatayna muxuu u qaatay maybe inaysan ayadu siiseen a lot of things fiiriya aabihiisaa u yeeray wuu waraystay wuxuu ku yidhi aabe maxaad u qaadatay buu yidhi markaasay wuxuu ku yidhi ma qaadatay buu yidhi markaasuu yidhi aaba ma qaadan bardaya anigu magaaladan ku imid in diin looga dhaqmi jiray bardhagihiina fura anigu warkiina ma yeelaaye bardhagihiina fura muxuu yiri aabe ma qaadatay lacagta dukaanka la leeyahay waa laga qaatay wuxuu ku yiri salaad aabe ma qaadan hayaha buu yiri aabe urtay orod buu yiri baarcad waa soo noqotay xuseen jibriil bay u timid Allah u naxariistay waxay tiri salaad baa guriga ku jiro saan wuxuu yiri salaad waan weydiiyeyo ama camburo waan weydiiyeyo salaad buu dhigi jiray because camburo dadka dhigi jiray salaad waan weydiinin aad u aqal badan weeye taqaanaan iyo hadii kalaba dadka yaqaano salaad waa nin aad u aqli badan oo aad u talanti badan muxuu yiri aabe muxuu yiri waan weydiiyeyo wuxuu igu yiri ma qaadan ma anigaad rumaysan weyday ma wiilkaaga xunkaabaad rumaysatay ogayo baayay talo ayay waa familiga dhexdiisa meel dheer ha raadi waa reer bicdiyaanka waa taariikh aniga guri dambays baan ahaa hooyaday baan ag fadhiyi jiray warka dukaanka dadka yimaada warkoodana waa dhuuxi jiray wax walbana halkaasaan fadhiyi jiray hooyaday baan ag fadhiyi jiray I'm smart
guriga shaqadiisa marka la dhaw weelka dhaq waa kasoo carari jiray hoogayo ba-ayey ma warkaygiibuu rumayn waayey ma wiilkiisa yarka haabuu rumaystay ma saanuu yeelay babababababababa maryaheedibay tag urustay bay tagto waa carood waxaan kuu sheegayaa she's right markaas ay caroonaysay oo she's wrong xoolahan haddii xataa wiilku qaato ma ayadaa iskale ma guriga aabeed iyo hooyada bay kala timid ilmaheeduba waa qaataan hadduu qaatay what is the big deal haddii aabihiis rumaystay what is the big deal diintaa idinku yar Soomaali people aniguse magaaladan ka imid diin baa looga dhaqmi jiray kow dad talent leh baan kasoo jeeda anigu nan inaan darroskiinaan xunkaayo farax xunkaasaa ka siinayo wada findhicilka iyo qabiilka iyo qurunku idinka buuxo magaaladan anigu ku dhashay cid walbaa deganayd gaal iyo muslimba way deganaayeen no one care anybody qof walba wadantiisa ku mashquulsanaa qabiil kastana waa deganaa most of them dad badan baa deganaa magaaladan ku dhashay kow waxaan idiin sheegayaa marka anigu hadda ka hor baan waxaan iri gabar roodo la dhaho roodo raabi oo igula jiri jirtay gabdhahayigii kow markaan social mediaha soo galay i garab istaagay dhibaato badanna loogu geystay yaa dhibaato badanna loogu geystay magaalada calaashaan maxaad ms u raacday yaa dhibaato badan loogu geystay miday qarsatay iyo miday qarsan weyday dhibaato badan loo geystay calaashaan ms maxaa u taageertay lagu mataqaanaayo lagu dulmiyey yaa gabdho badan baa jira oo Minnesota jooga oo maxaad ms u raacdeen lagu damage gareeyay gabadha yartaayo xukuna roodo gabadh allaala gabadha i raacda waa la damage gareyn kari markaasaa gabadh walba janta fagax iga cararta waay yaa damage gareynaya ma nin wheelchair ku jiraa wax damage gareyn kara no waa nimanka wadaadada isku sheegaya ama nimanka lacagta leh ama nimanka magaalada degan ama dadka magaalada ugu waaweyn oo falka soo galay baa igu noqday camaasiir markaasay gabadhii ag istaagtay kabriid batrool ba intay ku shubaan bay kabriid ku daaraan markaasay carartaa kow maxaan markaa rabaa inaan idiin sheego gabadhaasaan waxaan ku iri walaalay roodooy waxaan u malaynayaa inaan autism ahay xalay qolkii markaan ku jiray mataqaanaa dinos buu eray uu yiri baan kusoo xasuustay oo wuxuu yiri Soomaalida oo dhan buu yiri waxay qabtaa yaa waa autism buu yiri kow markaad si fiirisid ninkaas waa nin aad u caqli badan dinos la dhaho akhlaaq badanna wuxuu kasoo bartay haddaan hadda idin dhaho kulliga dharkaa dhiganaysaan laakiin meelba ii ooleysaa taas maalin kalaan ka sheekayn doonaa waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu dinos intaan weliga iyo wada sheekaysanay one day baan u malaynayaa ayaamaan cirkaa marayay inuu maalin miyahay amnaashuur xataa iyo inuu qoraal iisoo qoray dad wada xiriir la mari laakiin hadallada dadka aan jeclahay waa dadka caqliga leh cid walboo social media soo gashana ma dhagaysto anigu dad yar baan dhagaystaa sida soolo oo kale sida mataqaanaa shiikhan kishka la dhaho oo kale sida mataqaanaa dinoskaas oo kale gabdho badanoo dad yar baan dhagaystaa wiilkan la yidhaahdo gentleman oo kale duqbulow waa ihiliya waa nin dhalinyaro ah soomaadan garan marka dad badan baana dhagaysan anigu oo social mediaha soo gala runta markaa idiin sheego laakiin dad yar baan dhagaystaa waa markaan waqti helo weeye inta badan been ma idiin sheegayo taan duubaan dhagay anaa is dhagaystaa anaa is jecelna is dhagaysto why because xigmad baa iga buuxda soo xigmadaydii baan dhagahayga ku shubaa haddana mar labaad isku sii shubaa anaa iga soo baxday haddana waa isku sii shubaa dadka maxaa lagu yaqaanaa caqliga leh kelmadahaasaa lagu yaqaanaa qofku markuu buug qoro waa inuu buuggiisa maalin walba akhriyaa qofku markuu wax duubo waa inuu warkiisa akhriyaa gabadhii baan waxaan ku idhi walaalay roodoy waxaan u malaynayaa inaan autism ahay markaase way qosasho maxaa dhacay markaasaan waxaan ku idhi autismka Soomaalidu si roon ay u isticmaashaa autismka caruurta ah waa caruur smarti ah laakiin Soomaalida reerkii ilaahay cunug autism siiyo inuu SSI ku qaato jecel yahan ku iri ama saacada ku qaato laakiin aniga astaamaha markaan akhriyay autismka markaan akhriyay waxaan ku arkaan ku iri kow inay smart yihiin anigu maasha Allah smart baan ahaan ku iri kow waxaan ku arkaan ku iri autismka waxay yeelaysa meel hadduu wax dhigto dhagaysta arrintan waa arrin idin anfacaysa meel hadduu wax dhigto dadka autismka ah waxooda lama taataabto wax aan leeyahay in la taataabto ma jecli baan ku iri xataa ilmahayga inay taabtaan ma jecli
kow maathka baan jeclahaan ku iri maathka aad baan u jeclahay dadka autismka ah maathka aad bay ugu fiican yihiin haddaad caruur autism haysatid ilmahaaga ku dadaal inuu maath aad geysid because aad bay maathka uga shaqeeyaan mms oo hadda ka hor istiri autism baan ahay believe or not maalinta youtube-kayga la taabtay youtube-kayga maxaa ku jiray lacag bay ku guranaysay lacag bay ku youtube-kaygu waa meeshaan maalintan victimka ahaa aan warkayga ku shubtay waa account-kaygii waa qasnadaydii waa warkaygii waa alaabtaydii waa you touch maxaa u taabata tell me waxaa u taabatay ii sheegi kartaa so waxaan kuu sheegayaa ilmahaaga autismka ah meel hadduu wax dhigto don't touch baan ma idin sheegayo gabadhayda ciyaalkaygoo yaryar baan xaafad north minneapolis aan deganaa ilmahaygoo yaryar baan waxaan soo wacay gabadhayda waxay jeclaan jirtay tv-ga inay daawato kartuunkay jeclaan jirin iyadoo kan yar hadda ii jooga dhabta ku haysa iyana oo yar yahay oo bila jiro kan weynna waxoogaa jiro oy tv daawanayaan baan guriga line ka soo wacay wayga qaban weyda telefoonka qalbigayga waxaa ku dhacay amaa wax gaareen ilmahaygii amaa wax gaareen waxbaa kugu dhabdhahaya ma ka fujin kartid meesheedii waa magnet wiil yaroo xaafadda abaa usoo diray waxaan ku iri intaan gabar dariskaa wacay waxaan ku iri walaalay wiilkiina u dir waxaa tiraa telefoonka iga qabta intaa meesha xataa ma kici karo dadka ila fadhiya gabar carab saalax la dhaho oo haddeer minneapolis joogtaa iga markhaatiya oon gurigeeda fadhiyey waa bildinka waa kici waayey ma garan karta ayada waxaan ayaga aan la fadhiyo dhan ma joogo maan inta kaco gurigayga aadoo soo fiiriyo wiilkii dariska ahaa gabadhii dariskaada wiil yaroo walaalkeeda u dirtay albaabku ciyaalka ku garaacay wuxuu yidhi hooyadiin telefoonka ka qabta waa 2000kii waxaa i qabay wiilkaygaan dhalay axmed ow cali baan isqabnay waa la weydiin karaa maliyun waxay sheegaysa ma runbaa waa dhigi kartaan waxay sheekadu ku bilaabatay muu ogeyn laakiin wixii aan sameeyey buu idiin sheegaya ana hadda idiin sheegi doonay weydiiye kow waxaan sameeyey wiilkii yaraabaa u tagay waxaa u socda cartoon anigu dadka tviyada daawaday from today dadka tviyada fiirsada inta badan ma ihi inaan mar inta isaga goosto iska eego ka taga mooyaane aniga waxaan jeclahay warka telefoon inaan ku hadlo iyo inaan hadlo hadda saan u hadlay hadalkaan u bilaabayna maba jecliba telefoon kanaan ka hadlaa hadal baan jeclahay ma jeclo inaan wax fiirsado kas waa buuxaa wiilkii yaraabaa u tagay albaabku ku garaacay way ka furi waayeen way ka fureen wuxuu ku yidhi hooyadin telefoon ka qabta hooyadaa telefoon ka qabo hayiha bay ku tiri way tv jeclayd tvgeeday ku noqoto ma aqaan telefoonkuna ma codkaa ka xirnaa ka fogaa ma garanayo waa soo wacay weli ma qabanayso gabadhii baan wacay wuu u tagayo waxay ku dheheen waa kaa qaban waa soo kacay marka igu tiri waa u dirayo wuxuu ku yidhi wuu u sheegay haa ma la hadleen haa waxaan ogaaday inay caafimaad qabaan waa soo kacay marka gurigaan imid musqushaan galay tiimaa iska xiira weydiiye axmed ow cali carab saalax weydiiye markhaati ayadaa ka ah gabadhayda weydiiye marun baa dhaha injara afraayo beenahan reebta ayadana waa u yeeray kala hooyo haye ayadana waa u yeeray kuwayga haddaan xiray maxaan kuweeda uga xiraya labada yadiiyo afro ah soo qubaysanay fariga fadhina buu wuxuu soo galay axmed ow cali oo shaqo ka yimid baa guriga soo galay taariikh dhacday anigu wax beena idin lama soo fariista halkan I don't like it beenta waxaan markhaati lahayn anigu iga reeban yihiin markaasuu soo galay guriga markaasuu wuxuu arkay anigiiyo xiiran iyo gabadhiyo ma xiirnin laakiin afro yar baan reebana markaasuu wuxuu yiri markuu soo galay buu yaabay wuxuu dhahana ma yaqaano ninkaana wadanka wuxuu soo galay 1987 kiiba wadankan soo galay iska american buu iska noqday markaasuu wuxuu yiri markuu soo galay buu yiri are you okay are you alright history bay ahayd are you okay are you alright waar okay baynu nahay orod gurigu galay sushuu galay riibis ka bixiyay soo qubaystay intuu gurtay oo cunay waxaan ku yiri ima weydiinin
wuxuu og yahay inaan cirka maraayo waxa noo xiirayna ma yaqaano wuu baxay magaalada sii aaday hadhow baan uga sheekeeyo saasay samaysay timihiina anaa ka xiray anaa waa iska xiraan maxaa i gaarsiiyey waan naxay maxaan ka naxay waan soo wacay 3 caruur oo yaryar baan guri uga tegay gabadhayda markaas 11 sano 12 sano meelahaas ay jirtay waan naxay marka ma waxbaa ku dhacaa markuu wiilka ii soo noqdo igu yiri waa la hadalnay markaasaan indhaha waxaan kala fur inay caafimaad qabto markaasaan kacay intii hore waa kici waayay gabdhahan aan la joogo telefoon baan diraya soo maxaa keenaya mataqaana waxaas oo dhan waxbaa idin baraya kow timahaygana waa xiira gabadhaydana waa xiira kow maanta heerkan aan taaganahay ma lacag doon weeye dad bay lacag ku caayi jirtay dad bay saan yeeli jirtay lacag I'm not talking about money anigoon YouTube lahayn baan magaalada Minneapolis aad ogeydeen waxaan ka qaban jiray shaqadaydii 2 shaqan ka shaqayn jiray anoo baabuur wadan baan job ka shaqayn jiray anoo gaari wataan shaqayn jiray alaab baan gadi jiray samaadan garanin dukaan baan furtay goormaan businesska bilaabay 1999 ki taxi tankeeda ii soo laabtay baan ganacsi ku bilaabay in alaabta Suuriya la iga keeno in Saudi Arabia la iga keeno in Dubai la iga keeno adduunku waagaas waa ficnaaye dahabka oo xirxiran in la ii keeno oo box ku jiro oo dahab ah inaan ka soo qaato markhaati bay lahayd gabdhihii dahabyada iga gataa xaadir naadir ku ah magaalada Minneapolis anigu gadaalka gaar ma ihi laakiin gadaalka gaar baa xeebtayda halaqada badneed xantimaha u xiirtay way qasnadayda ku geeyay maxaa qasnadayda idin geeyay lacagay ku raadinaysa war meeqa jeer markaan xoogaa dhaho okay iska fadhiyo baa waxaan soo xasuustaa qiso aan duubay oo barnaamijka shaayo sheeko oo la makarta waagi barnaamijka fadhi jirtay taqana guriga makaraysa allah oo markaa ka hadlaysid taariibtaadii oo markaa ka hadlaysid kufsigaagii oo markaa ka hadlaysid oo markaa qosli aawe waxaygi yaa cunay maxaa u taabateen maxaa idin geeyay inaad taabataan kasa waxaad ka sheekaynaysaa lacag what you talking about guys lacag maxay $1 million haddii la siiyo I am not happy runtaa idin sheegayaa believe oo Soomaali say ka talista malahan Somali dad cilmi nafsiga yaqaano malahan believe or not ma idin sheegayo never ever in on give up garaynayo YouTube kaygi why ma ku geeyay beentaada you liar Somali people guys you liar حقوق مشغولة يصير مركا إما مسوي قاونتاي ناكتي دارود بسيجيسنيسي دارود يا هوية محوية صومالي موجودة تيدين I don't give a shit دارود يا هوية يا إتكلا يا كان يوتيوب كي يحرق دارود معها كان إعاية أنا دلها تاي عشر موتاي تاي دارود معها إن إلى عديد وتراد دلها دارود وكل راح يسنايا أصلا كل راح يسنايا كان دارود كأشياء جيسد وكان كل راح يسنايا عايدة إذا believe or not so naagi qabiil haddaan leeyahay YouTube-kayga lama xirin abtigay ima kufsadeen aniga damage baan ahaa because gabdhuhu waxay always jecel yihiin waxay always jecel yihiin gabdhuhu aabahood wiilashuna hooyadooda jecel yihiin I never see aabahay waan arkay laakiin hagtiisa ma arkin anigoo aabahay ciilkiisa qabaa waxaa dhacday in nin kasta aniga wax iga celiya uusan lahayn maanta waxaan dhageysanayay hadallada Queen Selena saaka dhageystay been ma idin sheegayo Queen Selena waa smart laakiin idinka damage ka gaarsiiyay maanta waxay tahay iyo waxa ay qaadatay xisaabteeda rabbigeed baa kule laakiin yaa u sababaha kulli shay in laha sabab baa leeyahay wax walbaba waxba sabab u ah adaa damage gareeyay family baa cunay wiil buu ahaa waa ilmo yaro saqiir u ahaa he doesn't have a dad abihiisa Mareykanku joogo goorma ii sheega daraad markii daahir calasow iyo nimanka iyo kulligood baalaha la iga wada rifayo habartii daaroodoo siigaysanaysa habartii da'da ila daba gashay habeennimadii waa berigii markay ahayd oo Yurub waagu u bariyay blue makeup baa soo baxay blue makeup blue never inaan samaynayo YouTube kale never don't thinking guys maalintaan kowl xiraan samayn lahaa never ever You okay? Yes
Making a video? Yes. Don't know that. May. Why? None of your business. Why ask my nigga DC? Ma daynayo. Why please? Boolice aan ku wacaa. Why you get that? Leave it alone. Why had a God? No. I am naked and I'm in the social media and dadka social media way ku maqlayaan. I don't give a fuck about the why. I don't care. I don't care. So waxaa idiin sheegayaa marka. Yeah. waxaan Somali people idiin albaabku ay xirayaa. Don't worry. waxa albaabkayga ma jabin kartid. I'm not breaking the door. That's it. waxaan idiin dhar ma xiranaya kastuuma waxaan qabaa rajabaati iyo kastuumaan qabaay. No. waxaan idiin sheegayaa marka dhibaatada aad ku samaysaan wiilkaygii weynaa weeye waxa albaabka garaacaya. waa wiilkaygii lagu dilay Minneapolis. maxaa ka qabateen? waa Cali Saleebaan. waa wiilkaygii ninku sheegtay oo yiri anaa dhalay. maxaa ka qabateen? maxaa ka samayseen? waa kana albaabka garaacaye. maxaa ka samayseen? ilmahayga waa damage idinkaana damage gareeyay. waa ninkii aan dhalin wiilku yiri waan dhalay. waa wiilkaygii suuqa bartankiisa lagu xabadeeyay. waa wiilkaygii aan iri intaana dhiman waa aan dhargaya. maxaad guys ka qabateen? ko been baa isu sheegtaan marka. ma fahanteen? social mediahana anoo qaawan baan soo galayaa. inta sharcigu u ogol yahay baan ku samaynayaa. maantana newska waxaan u socdaa magaalada Arizona. been ma idin sheegayo. ma igu mashquuli kartaan aniga. cid haddaa wax u qabanaysaan caruuraha aad hooyadoodna damage garayseen, lifekoodina aad gasheen, guryahoodana aad gasheen, oynaaya guryaha ka oynaaya. Soomaadan garanin ka sheekeeya kuwaas ka sheekeeya. anaa iskale Facebookayga, anaa iskale wakaas wiilkayga waa 25 years old. so maxaa gaaray? damage-kaad gaarsiisaa ku yaala. so adaa ku qabsaday aabihiis oo dhalay oo caan ah oo yaqaana yaa baad ku qabsateen. hooyadiisaad qaawiseen. idinkaa qaawiyey. I don't give a shit waxaad tirahdaan Somali people. you hate me wiilkayga inuu albaabka garaacayo. ilmahayga waa damage. laakiin waxaan idiin sheegayaa inaad idinkuna ilmihiinni oo damage ah inay guryihiina joogaan. inay guryihiina joogaan. telefoonkaa isqabsaday. aniga ilaa ma qabanaye. telefoonkaa isqabsaday. calaayati xaal dantaan lahaa waan gaaray. waxaan ballankii aan iri waa samaynayaana waa fuliyey. ilmahaygana inay wada qaylinayaan waad u jeedaan. albaabkaasuna wuu ii xirnaanayaa. mana waalni. dowlad hadday ii timaado iyo boolis hadduu ii yimaado iyo FBI hadday ii timaadana I am not mentally. waa nature anigoo saan ah waa soo fariisan karaa because silkayga ma aragtaa. simple. din maxaa 6 sano anoo jira ii kingeeyey? maxaa kuu geeyey anoo 6 sano jira inaad taabatid? maxaa kuu sheegay inaan cambar leeyahay? yaa kuu sheegay inaan cambar leeyahay? tell me. hays astur anigoo hadlaayaa rabta inaa afka ay qabataan. if you help anybody isaaqow kaxaysta wiilkiina. Cali Saleebaanow kaxaysta wiilkiina. reer Xirsi Wacaysow gabadhiina teekeer garaysta. aniga soo ma ahan reer wax i teekeer garayn kara. anaa isteekeer gareeyay. so anaaba waxa igu qufay. ayaga waraysta. ayagu damage ma qabaan. ayagu dhibaato ma qabaan. ayagu victim bay yihiin. maxaa soo gaaray? dhibaato ma soo gaartay? yaa soo gaarsiiyey? waraysta ayaga. haddaad wax masaajid tahay, haddaad sheekh tahay, haddaad qabiil tahay, haddaad reer tahay, weeris Cali Saleebaan, weeris Cawliyahan Cali. wiilka idin jooga ee damage ku gaaray ee ninka idig facale yiri anaa dhalay ee damage ka i gaarsiiyey. wiilkiina wax u qabsada. Cali Isaaq garxajis habar Yoonis Muuse Ismaaciil Axmed aw Cali Cilmi. wiilkayga weyn waa agoon. laakiin idinka adiga nool wiilkaaga wax u qabso. waa damage. ilmahayga caawa hadday wax kasta isku sameeyaan idinkaa ka responsibility ah. because guri diin leh oo culture leh bay ku noolaadeen. hooyadooda qaawan oo social media taagan wax weyn bay la tahay. brain damage waa ku wada dhacay ilmahayga. gabadhayda reer Xirsi Wacays reer Xirsi Wacays gurigayga qayla ka yeeraysa. gabadhayda reer Wacays oo reer Xirsi Wacays yaa damage ka gaaray u taga. gabadha yarta ay haysato ee godobiirsi yaa ee reerkoodu joogo wax u qabta. been baa sheegteen. idinka shidan tahay. wallaahi billaahi oo tallaahi runta ilaa isu sheegtaan mooyaane inaan aamusaynin. hanno hadal maaha hembererese arag maaha hanno hadal maaha hembererese arag maaha. bum hadana bum bamba
barateene ballaha la idinka rifaya tv-ga adduunka ugu weyn hadduu maantayto invite gareeyo anoo saasaan kasoo hadlaya freedom to speak because I'm American citizen. Hello Somali people, enough is enough. No more Somali victim ku joogaya guryaha ayagoo victim ah. كلجين المهين هو damage كلجين قبلهين هو damage كلجين ويلاشين هو damage كلجين وحبا قرنيسان ضدكي وحسمي 10 years كويلاش الحكومي أو جالس كجرا أو مرايكم كنا شيء أو مينيسوتا كنا شيء واي جالس كجرا واي ما يجا victim دمك قلي وا victim يجوا جالس كجرا victim كيهين أوي ضدكي براي وحاس أوي ضدكي وحاس براي أوي ضدكي كنا ليه يقوم ساكت يقوم كجرا hello Somali people وين سلامية لكن وحن كجرنا وحن ربنا إن أمريكا تصنع إن عرورته يركا وجالش كجبت لها فري باتين because we America citizen 10 years بالغو حكومي why هو يبري دامج لغو دغاي بالا يرنا قري تاجر بالله هيستا هو ينكود يا ابهود با Somali people aniga ma xiraysan afkayga ما يحرسان عرورتا إذا كوي سكول أنا لا صادق تو ير كهايو elementary school كي لا هاين أو baby كلا هذا جالس 10 years كجرا you think سامنا وسحدو you think سامنا وهردو no why جالس لوجلي why ما هي كسبدين innocent people وده كان كنا شيء أنين كرنير إنتو بلانو سميه دوكسي برليري سني أنا كمان تلا يقول جاي وسيل كي كانوا كلا وسمينا يبغى عرورتين إنه براند damage إنه كنا إذا كان براند damage بو إذا كنا جاي لكن واحد شيء جاي you know I cannot stop موالني قف كيدا ووالن تايو أنا موالني I am not crazy and I'm not crazy I'm okay but revolution baa wada inaan wax bedelaan rabaa beenta guryaha ku jirta guryaha ka shidan tahay Somali language baan ku hadlaamaana waa hor haddaan English ku hadli lahaa meesha maanta aan taagnay muddo all the world bay daawan lahaa soon oo leerarna way daawan doonaan laakiin waxaa idiin sheegaya halkaasaan joognaa taariikhda aan hayo haddii laygu qoro 5,000 oo buug bay buuxisaa markaasaa waxaa rabtaa inay aamusaan digsi daboolka iga saartaan no run iyo ilkaba waa la cadeeya ما فهمتين Soomaalida been baa bartaan saana lagu maraa suuqyada markaa tagtaan saan gabdho adeeganaya meedna arag gabdho saan u adeeganaya meedna arag suuqa saan ku maraya meedna arag maxaan kaga duwanahay aniga haa muslim baa leeyahay muslimka carruurta kufsanaya muslimka gabdhaha yarkaa dhabahay muslimka wiilasha dabada ka qarxiyey kuwiin saleena markaan dhagaystaba dhiiggaygaa madaxa ku fura so victim ba idinkaa ka dhigay codkar say u tahay ma aragteen wiil masaajidka inaan ka adimaan jeclaan jiray buu ku yiri lifekiisa iyo taa noloshiisa oo dhan baad baalaha ka rifteen markaasaad maanta waxaad rabtaa inaad waxaad idinku jeceshiin aad ku samaysaan shalay waxaad jecelayd baad ku samaysaa maantana waxaad rabtaa waxaad jeceshiin aad ku samaysaan waa idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh